marka waxaa dhacay ninkii wasiirka ahaa qudha ama qoorta ayaa laga jaray sababtoo ah warqadan kuma qorneen magac kuma qorneen warqadan amiirka wuxuu kusoo qoray qofka warqadan sida qoorta ka jar hebelow ama qudha ka jar qudha u dheeray marka qoorta sida ayaa looga jaray ninkii wasiirka ahaa soomaalida waxay dhahdaa soomahan god sireed ha qodin kusoo celmaamay maalid hore waxay ugu maamaaday god sireed ha qodin haddaad qodidna ha dheereen inaad ku dhici doontid ma ogide marka wasiirkii marka siriqdii oo dhigaya marka oo asiga ku dhacale asile ku dhacay asaa istoogta ninka sax qisadan waxaa laga qaadanaa xaasidnimadu inay maaragtay ya aniga sooma sheegin waxaa laga qaadanaya qisada wallahi ma sheegto okay wad ugu darsaaday السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا موقال عصب موقال كاسو كسابسن او يعني قيبتي لباد حاسن نمدا موقال كان كسو قادن دونو لبا قصو او كسابسن حاسن نمدا يدبات ديدا قصد كواد وحاينو بلاوايو وذات كينا عبد الرحمن كسو دواو نو بلاو مع سند qisadan koowaad waxay ku saabsan tahay ama qisada maanta qisooyinka aan soo jeedi doono waxay ku saabsan yihiin xaasidnimada iyo dhibaatadeeda qisada koowaad waxay ku saabsan tahay waxaa jiri jiray wiil dhalinyaro ah oo 20 sano ama 26 sano da-diisu ay tahay wiilkaas wuxuu ka shaqayn jiray meel maqaaxi ah ama maqaayad ah shaqadii maqaayadda ayaa ka burburtay ama shaqadii ayaa ka dhamaatay ama waa laga buriyey shaqadii si ahaataba shaqo la-aan ayaa ku dhacday markaas ayuu wuxuu sameeyey maqaayadan waxay ku taalay meel oo suuq ah oo laamiyaal iyo waddooyin leh oo baabuurtu ay maraan wiilkii dhalinyarada ahaa wuxuu bilaabay maalin kasta inuu imaado maqaayadii horteeda asaga oo qof kasta oo meesha soo mara oo shaqo u socdo ama shaqo maaragtay haysto oo maamulo ah ama meel dee shaqo madax ka ah wuxuu dhahayay asigu weliba cod dheer ku dhahayo qofkan shaqada oo haysto iyo booska oo joogo ma mudna aniga ayaa mudan waxaa soo marahay meesha qof baabuur wato baabuurkaas ayuu wuxuu u qaadahaya qofku wato xaasidnimo oo wuxuu leeyahay qofka baabuurkaas wato baabuurkaas looguma talagelin baabuurkaas aniga ayaa loogu talagalay sidaas ayuu maalin kasta ku hadli jiray asaga oo weliba codka kor u qaadayo soo meesha u imaanayay isbuuc 2 isbuuc 3 isbuuc ayuu sidaas sameynahaya maalin kasta sidii qof shaqeynahaya camal ayuu subaxdii gurigiisa kasoo baxayaa wuxuu imaanahayaa maqaayadii horteeda marka ayuu dadka meesha marhayaan oo xaasidnimo maaragtay darteed ayuu wuxuu leeyahay waxa ay haystaan aniga ayaa ka mudan marka meesha waxaa fadhiyey agtiisa waxaa fadhiyey nin oday ah oo 65 sano ama 65 sano da-diisu ay tahay wiilkan marka oo dhaho ama hadalkaas oo ku hadlo ah qofkan waxaas ma mudno aniga ayaa mudan oo kor u qaado codka odaygan madaxa ayuu sidaa ka leeyahay maxaa yeele hadalkaas ayaa ku socdo gadaal ay ka ogaan doontaan marka wiilkii maba ku baraaruginba 2 isbuuc iyo 3 isbuuc maalmihii ugu dambeeyay ama maalintii ugu dambeysay ku baraarugay odaygan waxa uu sameynayo maalmihii kale oo dhan wiilkan hooshiisu iska wata waan oo iska hadlaya sidaas ayuu ereygaas ku celinayay maaragtay odaygan iyo dhinaca moo fiirinaynin maalinka dambe u arkay odaygan oo madaxa sidaa ka siinayo markaas ayuu u imaado wuxuu yidhi waryaa maaniga ay u jeesjeesaysaa marka odaygii wuu xanaaqay wuxuu yidhi waryaa hadalka maaragtay si adab leh u hadal camal hadalka iska hagaaji waryaa qofka aad hadlaysa waa qofkaa weyn aniga waxaa jiraahu yidhi 65 sano ama 65 sanaa jiraahu yidhi marka si edab leh ku hadal yidhi iga edabso markaas ayuu wiilkii wuxuu yidhi raalli ahaw adeer waa ka cudur daaranahaya arrintaa laakiin maxaa ka wadaa yidhi qaabkan madaxa ah sidaas
luxaysto markastoo aniga aan hadlo maxaa madaxa sidaa u leedahay, maxaa ula jeedaa arrintaas? markaasuu odaygii u sheekeeyey, arrintii ugu sheekeeyey oo wuxuu yidhi maqaayadan wuxuu yidhi suuqaanay ku taale, keligeed ayay maqaayadan ku taale meeshaan 30 sano ka hor. aniga waxaa ahaa shaqaalo kamid a shaqaalaha maqaayadda ka shaqeeyo. hadda maqaayaddii way weynaatay, suuqii wuu weynaaday. aniga marka wuxuu yidhi maqaayaddaana ka shaqayn jiray, shaqadii marka waa waayo yidhi, ama waa laga buriyay shaqadii. markaasaa waxaa bilaabuu yidhi inaan meeshaan soo fadhiisto oo aan dadka maqaayadda ka shaqeeya ama midka iskale iyo dadka meesha marayo baabuurta wataan iyo dadka shaqooyin ku socdaan inay xaasidnimo ku sameeya ayaa bilaabuu yidhi, oo aan xaasidnimeeyo oo aan dhaho waxa ay haystaan ma mudno, aniga ayaa mudan. saasaa markasta meesha usoo fadhiisanayo yidhi. wuxuu yidhi marka odaygii 30 sano ka hor ilaa hadda meeshaana fadhiyaahu yidhi, shaqadiina ma helin, wax kalena ma helin, dadkiina baabuurtoodii waxoodii way haystaan, xaasidnimadaas ayaa meeshaan la fadhiyaahu yidhi, wax iisoo kordha ma lahan. marka madaxa waxaasaan ugu siinayahu yidhi, haddeertaan wuxuu yidhi da ayaan ahay, ma hadli karo, hadalka adiga aa sheegaysa kulaha waxaa kasoo qaaday inaan aniga dhahooya camal. hadalkaas adiga ku hadlaysid ilaa qof dhalinyaraha xoog la ayaa tahay, codkaas korka u qaadaysid ayaa waxaa aniga iska dhaadhicinaya inaan aniga dhahooya camal, hadalkaas ku hadlooya camal. marka arrintan aawodid oo ku faraxsanay camal, hawshaan meesha kasii wadu yidhi. wiilkii markaas ayuu soo baraarugay, markaasuu caqligiisa soo laabtay, marka ayuu wuxuu go-aan ku gaaray inuu xaasidnimada iska dhaafo oo maaragtay shaqo u raadsado, oo meeshaan oo imaanayo dadka xaasidnimeynaya inuu iska dhaafo ayuu go-aansaday. hadalkii odayga ayaa saameeyey. wiilkii wuxuu yidhi haddii aan sidaan kusii socdo, hadda 3 isbuuc ayaa iga khasaartay, waxaa 30 sano ayaa arrinta igu qaadan doontaa. sida odayga camal meeshaan ayaa fadhi doonaa, wax iisoo kordhi doono ma lahan, wax iisoo kordhi doono ma lahan ayuu yidhi. wiilkii markaasuu meesha ka cararay oo xaasidnimada iska dhaafay. marka qisadaas waa qiso aada iyo aada maaragtay uga hadleyso xaasidnimada iyo dhibaatadeeda. marka waxyaabaha laga qaadan karana waa dareemaysaan. waxaa laga qaadan karaa qofka xaaska inay waxba usoo kordheen, in waqtigiisii oo ka dhammaanayo, in dadkaas oo xaasidnimeynayo wax oo ka qaadi karo iyo wax oo maaragtay ka nusqaamin karo aynan jirin. shaqooyinka iyo baabuurta iyo waxay haystaan in uunan ka qaadan karin ayaa laga qaadan karaa. waxaa laga qaadanayaa qisadaas inay xaasidnimadu inay tahay lugooyo, qofka oo lug go-ahayo maalin kasta sidii qof shaqeynaya camal ayuu wuxuu usoo ordahaya fiiri oo u imaanahaya oo usoo dadaalahaya inuu meesha imaado oo enerjigiisii ku bixiyo qeyladaas oo qeylinahayo, isigoo weliba wax xun ku qeylinahayo. dee xaasidnimo arrin xun waaye, ilaah laga magalo shar ahayn. waxaas asoo sameynahayo ayuu marka waqtigiis ka dhammaanahaya, wax oo faa-iidahay ma lahan. marka qisadaas halkaas ayay ku eg tahay. haddana waxaa ku xijinaynaa qisada labaad. qisada labaadne waan isla qaadanaynaa insha allah. xoogaa qof meeshaana waxay tiri waa igu dheertahay qisada camal, marka waa isla qaadanaynaa, labadeena isla tabinayno insha allahu tacaala. qisada labaad waxay ku saabsan tahay horta xaasidnimada, waxayna ka hadlaysaa inay jireen 3 nin. 3daas nin marka maxay kala ahaayeen? nin amiira iyo nin wasiiri, nin kaloo reer baadiye ah. reer baadiye ah wuxuu aada ugu dhowaa amiirka. amiirka waa dareemaysa waa qofka sare oo khaliifka oo maaragta madaxweynaha camal ah. wasiirkanne amiirkaasoo ka hooseeya. ninkan kale oo reer baadiye ahne wuxuu u dhowaa oo soo dhaweysay, waxaa soo dhaweysan jiray amiirka oo qasrigiisa ayuu ku marti qaadi jiray. labadooda saaid ay ugu dhawaayeen amiirka. maalin maalmaha kamid ah ayaa wasiirkii waxaa gashay xaasidnimo oo u qaaday ninkii reer baadiyaha ahaa. maadaama amiirkii ninka reer baadiyaha uu soo dhaweysanayo, wasiirkii wuxuu yiri booskaada waxaa lagu bedeli doonaa ninka reer baadiyaha ah oo adiga meesha waa lagaa qaadi doonaa. ninkaas ayuu maadaama amiirka uu soo dhaweysanayo, adiga bis way ku dhamaatay camal. xaasidnimaa gashay. kor u qaade. xaasidnimaa gashay. xaasidnimada markay gashay muxuu sameeyey marka? xaasidnimadu markay gashay, wasiirka oo u qaaday ninkaas reer baadiyaha ah wuxuu u dhigay siriq oo saaid u weyn oo yacni wuxuu u tegay amiirka. markaas ayuu ku dhahay ninka wuxuu dadka kale u sheegaa inuu afkaaga u raayo. marka amiirkii wuu yaabay, wuxuu dhahaa ma waxaasoo iga sheegaa? haa ayuu yiri, waxaanu ka ogaan kartaa beri markii oo ku imaado
afka ayuu qabsan doonaa. Sidaa la soco amiirow. markii halkaa marayso ayaa ninkii wasiirka ahaa si uu amiirkan arrinta si oo practical u tuso ayuu wuxuu sameeyey, wuxuu marti qaaday ninkii reer baadiyaha ahaa gurigiisa ayuu ku marti qaaday. wuxuuna ku marti qaaday raashin oo ka buuxiyey maaragtay toon iyo basal iyo dee raashinka waxyaabaha lagu kululeeyo maaragtay kuleelka oo af urka laga qaado maarkin oo qofka afkiisa usu urahay marka oo cuno camal. sax. markaasuu subaxdii wuxuu u tegay amiirkii u tegay kii reer baadiyaha baxay subaxdii amiirkii u tegay. markuu amiirkii u tegay ayuu wuxuu sameeyey afkii ayuu dabooshay si oo dee toontan iyo waxaan kasoo kamkamahaya ama kasoo baxaya afkiisa ee u dhibaateen ninka amiirka ah. markaas ayaa amiirkii wuxuu ka fakeray oo maskaxdiisa kusoo dhacday wasiirka wuxuu sheegaya inay run yihiin. wasiirka wuxuu sheegaya run waayo, ninkan waa ujeeda afku kaa dabooshabo oo wuxuu aaminsan yahay afkaada inuu uru aaminsan yahay, marka waa inaa ka taqalustaa ayuu is yiri. kii amiirka ahaa ayaa wuxuu yiri waa inaa ka taqalustaa ninkan reer baadiyaha maadaama afkaadii wax ka sheegay camal. kabacdi maxaa dhacay marka? markaas ayaa amiirkii warqad u dhiibay ninkii reer baadiyaha ahaa. warqadaas oo ugu dhiibay nin ay isla shaqeeyaan oo ciidan haysto. warqada marka waxaa ku qorneed qofkii ku imaadaa, qofkii warqadan kuu keenaa qoorta ka jar. ninkii reer baadiyaha markuu warqadii qaaday asaga oo sii wado oo aan ka bixin qasrigii ama aqalkii madaxtooyada ayaa waxaa la kulmay albaabka kula kulmay kii wasiirka ahaa oo xaasidka ahaa. markuu la kulmay ayaa wuxuu arkay ninkan warqada sido. warqaduu weydiiyey, warqadan amiirkii iisoo dhiibuu yiri nin hebel ayaa u geyn rabaa. marka xaasidkii ama wasiirkii waxaa gashay damac waxa la yidhaha, ama waxaa galay damac ayaa galay. wuxuu yiri warqadan waxaa ku qoran lacag ayaa ku qoran oo ninkan jag ayaaba maaragtay amiirkii soo siiyey camal. markaasuu calacalay. markaas ayuu wasiirkii ku dhahay ninka reer baadiyaha oo warqada wado, warqada ayaa kuusoo dhiibay. markaasuu wuxuu ku yiri warqada waxaa iisoo dhiibay amiirka. markaasuu yiri ii dhiib warqada anaa qaadaye ani isii ayuu yiri, waayo damac ayaa ku jira xaasidkii. baadiyii marka warqadii siiyey asagoo xushmeynayo oo dhahay ninka maadaama uu wasiir yahay uu u dhiibay. markaas warqadii oo qaaday ninkii wasiirka ahaa wuxuuna u geeyey ninkii kale oo ciidanka haystay oo markii hore loo soo diray. kabacdi marka waxaa dhacay ninkii wasiirka ahaa qudha ama qoorta ayaa laga jaray. sababtoo ah warqadan kuma qorneen, magac kuma qorneen. warqadan amiirka wuxuu kusoo qoray qofka warqadan sida qoorta ka jar hebelow ama qudha ka jar, qudha u dheeray. marka qoorta sida ayaa looga jaray ninkii wasiirka ahaa. waxaa looga jaray oo ku baxay ninkaas marka muxuu ku baxay waxa in qoorta laga jaro keenay oo sababta u noqdo maxaa waaye? waa xaasidnimada. xaasidnimo wey, xaasidnimo. damac ayaa ku hoos galay. damacii marka xaasidnimadii u dhigahay soomaalida waxay dhahdaa soomahan god sireed ha qodin soomaalida hore waxay ugu maamaaday god sireed ha qodin, haddaad qodidna ha dheereen inaad ku dhici doontid ma ogide. marka wasiirkii marka siriqdii u dhigaya marka oo asiga ku dhacale asile ku dhacay asaa istoogta ninka. marka maalmo ka bacdi ayaa ninkii amiirka ahaa wuxuu tabay wasiirkii ayuu dadka weydiiyey wasiirkii aaway yiri. markaas ayay waxay dhaheen wasiirkii dhowr maalin maba la arkinba ninka giirkiisa lama arkin. markaas ayuu wuxuu yiri kii reer baadiye ahayne ninkii reer baadiyaha wuu joogaa dhaheen waa nin nool oo magaalada joog. xayun yursaq afcariga ku dhaha xayun yursaq waa qof nool oo la irsaaqayo. waa nool ya ninkan. kii horena yaa kii wasiirkiina waa tegay waa ku daayay saaxiibka. markaas ayuu wuxuu u wacay amiirkii ninkii reer baadiyaha oo wuxuu yidhi kaale oo u imaaday. markaasoo qabsaday wuxuu yidhi maxaa dadka ugu dhahdaa afkaada u rahayo? markaasuu yidhi afkayga afkaas ma dhaho yidhi amiir waxaas aniga ma dhaho, dadka waxaas ma uu sheego yidhi, dadka arrintaas uma sheego, afkaada ma u rahayo yidhi. haddee marka sidaas arrinta sidaa haddee ahayn yidhi amiirkii maxaa afka u qabsatay ayaan dhowd marka afka asaas iga qabsanaysa maxaa ka wada? markaasuu u sheegay arrintii wuxuu ku yiri ninkii reer baadiyaha waxaa igu marti qaaday ninkii wasiirka ahaa cunto
ee ka buuxdo tuun. Sidaas ayaa afka u dabooshay si aysan waxaas aysan kugu soo urin, ayuu ku yiri ninkii reer baadiyaha amiirka. Markaas ayuu amiirkii wax yar aamusay, wuxuu ku dhahay oraa ilaa hadda la isticmaalo oo ah alla xaasidnimadu cadaalad badana, waayo kii xaasidka ahaa ayay ka bilowday. marka xaasidnimada wax fiican ma ahan bataatanba, wax yacni lagu maxaa leeyahay maxay darto wax lagu hodmaayo mee hodan lagu noqonayo lagu qani lagu noqonayo mentaliteedio wax lagu raagayo mee darto. marka xaasidnimada ma ahan wax lagu liibaanayo oo wax ka helaysid. xaasidnimada ma fiicno runtii. xaasidnimada iyo fadeexada labadoodu isleeyihiin aan maleynaa. qofka ku fadeexeynayo oo ceebtaada banaanka keenayo iyo qofka ku xaasidnimeynayo labadaba hal boos ay wada taagan yihiin. marka xaasidnimada aan iska dhaafno, dee fadeexada iyo xaasidnimada isku mid waa mahano. qisidaa marka waxaa laga faa'iidaa inaadan qof aadan xaasidnimo u qaadin ama aadan xaasidnimo. way jirtaa horta xaasidnimo inay qofka ay gasho, laakiin inuu ku dhaqmo oo xaasidnimo qofka oo xaasidnimeeyo xaasidnimadiisa banaanka oo usoo saaro ma ahan oo ka shaqeeyaa sida qofka uu taqalusayo si fiican. marka xaasidnimada ma fiicno. xaasidnimada waa in laga waantoobaa, mana wax fiicanna maahan. yes marka sax weeye. marka qisadan maxaa laga qaadanaa? qisadan waxaa laga qaadanaa xaasidnimadu inay maaragtay aniga soo ma sheegin waxaa laga qaadanaya qisada. wallahi ma sheegto. okay wad ku darsaaday jiraane. qisadan marka maxaa laga fahmayaa ama maxaa laga qaadanayaa? duruusta iyo casharada laga qaadanayo waa maxay qisadan? waxaa weeyaan qisadan wax laga qaadanayo in qofka xaasidka ah oo maaragtay oo asaga khasaarahayo, oo xaasidnimada iyo qofkaas oo xaasidnimeynahayo iyo dhibaatada oo u geysanayo inay asaga kusoo laabanayso. waa xabad oo riday oo kusoo laabatay camal sujuudda ugu dhacda weeyaan. marka waa wax aad iyo aad u liito weeyaan. wax oo maaragtay qofka aaminsanne, qof ilaahay qadartiisa ku kalsoon ma ahana layidhi. qofka aaminsan xaasidnimada qof ilaahay qadartiisa ku kalsoon ma ahan. ilaahay wuxuu u qadaro ninkaan cunaa. hadda fiir ninkaan wasiirka, ninkaan reer baadiya ilahay wuxuu u qadaro cunaa soo maahan. ilaahay hadduu mulki iyo inuu madax noqdo u qadare oo siinahaya. marka in la xaasidnimeeye maahan. si fiican. marka maantana muuqaalkeena halkaas ayaan ku simeynaa. insha allahu tacaala subscribe-ta, like-ta, share-ta, commentiga intaba insha allah ayaan la hilmaamin. dee ya meesha noo kala kiciya ilaa hadda kun ayaa dhaafi lanahay. naga dhaafi dee ciyaarta soomaaliyey. so waxaa rabtaan inaan soo galno maaragtay challenge soo gelino iyo prank ya. waxaa noogu filan soomaalida kale noogu filan. dee meeqa youtube boqolaal youtubera soo geliyaan. marka annaka inaan wax kala imaanaan rabaa in aan maaragtay ugu talagalnay. waxaasna waa samayn karnaa, madadaalooyinkaas waa samayn karnaa. dhalinyaro ayaa nahay, balse dee wax la faa'iidayo dadka meelaha dadka maaragtay boogtooda inaan taaban ayaa rabnaa. meelaha dadka ay ka jiran yihiin inaan u sheegno u iftiimino insha allah. dhalinyarada weliba dhalinyarada insha allah. marka sidaas ayaa ugu talagalnay. waxyaabahaas barankiga iyo challengeana waxaa noogu filan soomaalida kaleeto. marka insha allah na taageera oo share dhaha. insha allah waxaana aada u rajeynaynaa inaa wax uu naga faa'iidi doontiin insha allah. muhiimadu waa in wax la iska faa'iidaa, wax kaleeto maane. waa sidaa ay kheyr ayaa soognaa insha allah. billahi tawfiiq. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. inta samaha sheegta oo sifeesa waa in yar ee subscribe ta ha dhaafin.